بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته halkan waa Muctaz Production waxaanu maanta barnaamijkan gaarka uga hadlaynaa dowladda Kenya ayaa waxa ay maanta albaabada u xirtay shan xawaaladood oo xawaaladaha Soomaalida kamid ah oo ku yaala wadankaasi Kenya ee magaalada Nairobi waxa la isweydiinayaa waxa ay tahay dowladda Kenya maxay ay kaga damacsan tahay in xawaaladahan ay albaabada u laabto dowladda Kenya ayaa waxa ay u sheegtay dadka xawaaladahan iskale in baaritaan ku socda xawaaladahan aysan garanayn waqtiga dib loo furi doono laakiin intuu baaritaan ka socda xawaaladahan ay xiran tahay dhacdadan waxaa kasii horeysay dhacdo ka horeysa ahayd daraad 3 maalin cisho waxaa Jomo Kenyatta airportka magaaladaasi Nairobi ku xayiran xubno ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo ku jiro wasiir oo ku jiro senator oo ku jira xildhibaano saddex macsha ay ku jiraan waxa la leeyahay kama bixi kartaan fiisi ayaa loo diiday wadankaas ay ku gali jireen sida caadiga ahayd dadka haysta passportka diplomatic passportka oo passport service la yiraahdo waxa ay mar walba ku tagaan ayagoo fiisaha ka qaata arrival ayagoo marka jooga wadankaas Kenya Jomo Kenyatta airport laakiin dhacdadan ayaa waxa ku soo aagaysa xilli ay dowladda Kenya cadaadis saarayso dowladda federaalka Soomaaliya arinta kiiskan badda ay kula jirto dowladda Kenya dowladda Soomaaliya waxa su'aal isweydiin mudan leh dowladda federaalka ee Soomaaliya maxaa sababta ilaa hadda uga hadlaada ay jirto sababta ilaa hadda uga aamusan tahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo asaga wadanka madaxda ah ugu sameeya amniga iyo arrimaha dibadda Kenya ma ahan markii ugu horeysay ay cirqalad ama khilaaf aan sidan abuurayso ama dandansiya week hor waxa ay dowladda Kenya joojisay diyaaradii takhaska ugu duuro jiray wadankaasi Soomaaliya ku tagay jiray Kenya Jomo Kenyatta iyadoo lagu baarin la sii marin magaalada Wajir dowladda Kenya ayaa waxa ay ku dhawaaqday in ay diyaaradahaas tooska ay joojisay hadda wixii ka dambeeyana ay diyaaradaha soo mari doonaan Wajir xaggaasi lagu soo baari doono kadib ay u gudbi doontaan wadankaasi Kenya caasimada Nairobi wasiirka arrimaha gudaha arintaas uu ka gaabsaday ilaa hadda dowladda federaalka Soomaaliya kama aysan hadlin waxa la yaab ah oo ama kaaga in dowladda federaalka Soomaaliya intaas oo tacadiya dowladda federaalka dowladda Kenya ay ku hayso dowladda federaalka Soomaaliya waliba khaasatan shacabka waliba iyo mas'uuliyiinta dowladda sare in fiisi loo diiday wasiir dhan oo matalaya wasiir waa garanaya waxa uu isaga yahay iyo maxaa la yiraahdaa meesha level ku taagan yahay marka arintan waxay noqonaysaa arin siyaasad la siyaasadeeyay dowladda Kenya ula jeedo in ay cadaadis ku saarto dowladda Soomaaliya waxa su'aal meesha taagan tahay maxay dowladda federaalka Soomaaliya ay ugu jawaabi lahayd maxay go'aan adag oo dowladda Kenya kaga qaadan lahayd arintani waxa shacabka Soomaaliyeed isweydiinayaan maxay tahay sababta Kenya aynu nagu noqotay dowlad sida Mareykanka oo kale ah anaga nacro qabataysa xaqaasi noo gasha aanan wali xataa waxba koone ayagoo waliba jooga ciidamadoodii ugu badnaa Soomaaliya daraad waxa dhacday dowladda inay ka baxeen xarumihii ay ka hayeen dowladda ismaamulka maxaa la yiraahdaa maamulkaasi Jubaland garoonka diyaaradaha Kismaayo ayaa ka baxeen waxaana lagu rajiyay ciidamo Ethiopian ah qorshaha Ethiopia Kenya waxa uu yahay in si ay dowladda federaalka Soomaaliya wada hadal ula furto kiiskan badda ay Soomaaliya la gashay dowladda Kenya ayaa waxa ay rajeynaysaa hadii ay wada hadal gala in ay iyada guul ka gaari doonto aysan ku qanacsaneyn maxkamadda in ay maxalliga go'aanka loo daayo dowladda Kenya waxa dadka Soomaaliyeed badan shacabka Soomaaliyeed waxa ay ku leeyihiin xarumaha ugu waaweyn iyo ganacsatada ugu waaweyn waxa ayna maalgashteen caasimadaas Nairobi waxa ay ku leeyihiin kaalmashada waxay ku leeyihiin dukaamo bakhaaro istooro dukaamo waaweyn guryo waxyaalo gawaari waxa ganacsiga ugu badan ee Soomaaliya maalmihii u dambeeyay ama sanadihii u dambeeyay ama 20 30 sano u dambeysay waxa ay ku tiirsaneyd dhankaasi Nairobi marka waxa loo baahan yahay arintani dowladda federaalka Soomaaliya aan baaqan ugu direynaa in arintani laga qabto hal baa loo baahan yahay iskama ahan waxaad matalaysaan shacab waxaad matalaysaan ummad Soomaaliyeed waxa ku saaran mas'uuliyad madaxweynaha federaalka Soomaaliya iyo wasaaraha Soomaaliya waxa looga baahan yahay arintan in laga hadlo arintan soo noqoshada badan waxa dhacday maalin dhow in xiriirka Kenya ay u jartay Soomaaliya xiriirka Kenya ma gajay Soomaaliya waxa dhacday in madaxweynihii dowladda federaalka Soomaaliya iyaga xiriirka noo jaray safaaradda kala raray
haddana in madaxweynihii Soomaaliya loo hoyo oo la kaxeeyo isagii iyo kaxeeyo madaxweyne ra'iisul wasaare waddankaasi Ethiopia Abiy Ahmed uu geeyo maxaa la yiraahdaa Nairobi. arrintaas waxay noqotay arrin xogaa yara ceeba. marka dowladda Kenya waxay aaminsan tahay in sinaba aysan ugu maarmin dowladda Soomaaliya ee Nairobi ama Kenya ama siyaasadeed wax walba ay ahaato. That's why Soomaaliya marka Kenya ay ku caburinaysaa ay culays ka saaraysaa ganacsatada shacabka mas'uuliyiinta dowladda in aysan maxaa la yiraahdaa aysan u fududeyn hawlihii ay ka heli jireen ama service-ka ama meelihii ay ka ganacsan jireen si cadaadis loo saaro dowladda federaalka Soomaaliya in arrinta badda ay ka laabato ama ay wada hadal galaan. marka shacabka Soomaaliyeed waxaan ogeysiinayaa in dowladda Kenya ay nagu noqotay wadan quwad weyn sida Mareykanka, Ruushka, wadamo badan sidaas oo kale u tahay wadamadaas waxaa jirta wadamada yar yar inay culays saaraan laakiin Kenya markii nala barbardhigo iyaga anaga inkastoo ay iyaga naga horeeyeen intaasoo sano ay wada dowlad ahaayeen haddana saas ay tahay horumarka isku mid baan nahay. dhibaatada ugu badan waxay tahay qaadka ugu daran Soomaaliya xaggaas buu ka yimaadaa millions ba maalinta soo xareysa dowladda Kenya dadka ka ganacsada qaadka. marka dowladda Kenya markii la eego probability-ga problemka ayaga noo sameeyaan ama ay keenaan iyo faa'iidada waxa badan problemka ama waxa badan dhibaatada ka soo gaarta Soomaaliya. marka dowladda federaalka Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa in arintani ay dowladda ka fariisato ay dib ugu fiirsato dowladda Kenya xiriirka dowladda Soomaaliya iyo Kenya iyadoo loo marayo dhabaha toosan ee siyaasadda iyo dhabaha toosan ee siyaasadda arrimaha dibadda. dowladda federaalka Soomaaliya waa dowlad la aqoonsan yahay adduunka dhan aqoonsan yahay waana dowlad jirta. waxaan marka ugu baaqayaa in ay dhulka ka soo qaado madaxa ay madax sare istaajiso waxayna matalaysaa waa shacabkana waxaa looga baahan yahay in dowladda ay garab istaagaan. dowladda Kenya anagu waanu ka weynahay la mid manihin Kenya waxaanu u rajaynaynaa guuldaro inay ku guuldareysato baddaasi ay kiiska ku wado. waxaan rajaynayaa in aanu guul gaarno insha Allah. waxaanu rajaynaynaa in madaxdeena Soomaaliyeed aanu ku garab istaagno si ay guul ugu gaari lahaayeen arrimahaasi si aan ugu guuleysan lahayn Ethiopia Kenya waddankaasi Imaaraadka Carabta. sida wada ognahay Imaaraadka Carabta waa wadan khaliijka ku yaala gacanka Carabeed oo leh dekedaas ugu weyn ay ka soo xaroodaan billions. marka dowladdaasi Imaaraadka ma doonayso in ay hesho dowladda Soomaaliya ama waddanka Soomaaliya in uu nabad noqdo. haddii uu nabad noqdo ganacsiga iyo dhaqaalaha geeska Afrika waa laga wareegayaa. marka mar walba waxa Imaaraadka marka ay garab siisaa dowladdaasi Kenya si ay carqalad ugu sameyn lahayd Soomaaliya aysan nabad u noqon lahayn ay jabhada iyo maxaa la yiraahdaa xisbiyo. barnaamijkeena maanta xaggaas ayuu ku ekaa. barnaamij lamid inta ku kulmi doono wax walba soo kordha oo ku saabsan arrintani waxaan idin soo socodsiin doonaa saacada xigta wararkii ugu dambeeyay ee arrimahan wixii ku soo kordhana waxaana idinku soo dawin doonaa channelkan Caalamka Muxtarif channel. fadlan subscribe sameeya share gareeya arrintani barnaamij lamid inta ku kulmi doono. waa aniga Waliyo Maxamed Cabdullaahi. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.